Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Sanaa. Waxaan jiraa 19 sano. Waxaan rabaa inaan idin sheego sheekadayda. Waxaan ku jiraa sanadkii koowaad ee jaamacadda. Waxaan bartaa kulliyadda daawada. Asxaab badan ayaan yeeshay, laakiin gabar ayaga ka mid ah ayaa si daran iigu soo dhawaanaysay. Waxaana lagu magacaabaa Nayl. Asxaabteyda oo dhan way ii imaan jireen, waxayna ii sheegi jireen inaan aad u qurux badanahay. Run ahaantiina waan qurxoonahay. Marka ugu horeysay baa aniga iyo Nayl si fudud ayaan isugu soo dhawaanay, laakiin kuma qanacsanayn. wax kale ayaan iska dhaadhicin jiray. Sidaas ay tahayna waan iska indhatiray. waxa ay i weydiisay su'aalo ku saabsan noloshayda. Anoo la yaaban ayaan u jawaabay. Maalin anagoo jaamacadda ka baxnay una socna guriga ayaa Nayl wiil albaabka ku sugayay. waxay igu dhahday, waa walaalkayga Maajid, waxaan rabaa inaan usoo sheego ee isug. Haye ayaan ku dhahay. qaabka oo ii soo fiirinayay ima cajabin. dhanka kale ayaan u jeestay. daqiiqada ayaa ka soo wareegay. Nayl ayaa igu soo laabatay, waxayna igu dhahday, maxaa kugu dhacay? Maya ayaan ku dhahay. daal aad u fara badan ayaan dareemayaa. inaan guriga aado ayaan rabaa. haa, waa runtaada. amba daal aad u fara badan ayaan dareemayaa. guriga ayaan ku laabtay. raashin ayaan cunay. kadibna qolkayga ayaan galay si aan wax u akhristo. tilkayga ayaan waxaan ka arkay Maajid magaciisa iyo sawirkiisaba. asoo dalab saaxiibtinimo ii soo diray. waan iska indhatiray. waxaana isdhahay Nayl walaalkeeda waaye, sidaas ayuu kuu soo dalbaday. nolol maalmeedkayga si caadi ah ayay u socdeen, laakiin Maajid aragtidiisa waa ay igu badatay. marka ay asxaabta arkeen, waxa ay bilaabeen inay ka hadlaan falalkiisa foosha xun ee uu gabdhaha kula kaco. gabar kasta inta uu barto uu xiriir la sameeyo, guur u ballan qaado ayuu kaga bixi jiray. kadibna gabar kale ayuu baran jiray, wuxuuna u sheegi jiray in ay ka duwan tahay gabdhaha kale oo dhan, wuuna is-aaminsiin jiray. asxaabtaydana inuu mar hore sidaas ku sameeyey. marka aan sidaas ka maqlay, aad ayaan u nacay. wiilasha noocaas oo kale ah kama helo. waxaan nafteyda ku dhahay, laakiin Nayl wiil sidaan oo kale inuu la dhasho ayada dembi kuma lahan. isbuuc ayaa ka soo wareegay. Maajidna aragtidiisa ayaa nagu badatay. markastana anaga ayuu naga soo agdhawaanayay, isagoo xujo ka dhiganayo inuu rabo inuu walaashiisa la hadlo. marka aan arkana, isla markii meeshii waan kasoo dhaqaaqi jiray. marka uu baxay kadib ayaa Nayl igu dhahday, marka aad walaalkayga aragto maxaad u baxdaa? aniga ma jecla dadka aanan aqoonin inaan la hadlo. maxaa kuu diiday inaad barato? walaalkayga waa qof aad u wanaagsan, qofka muuqaalkiisa sare ha ku qiimaynin. waxaan ku dhahay, Nayl waan ku baryaa inaan barto ma rabo, haygu qasbin. waxaan u maleeyay wax kasta in ay meesha ku dhammaadeen, laakiin ma ogeen arrinta in ay meesha ka bilaabanayso. 2 maalin ayaa ka soo wareegay. Nayl ayaa igu dhahday, walaalkayga inuu ku guursado ayuu rabaa, nambarka waalidkaaga mana siin kartaa? waxaan ku dhahay, Nayl saaxiibteeda ayaa tahay, mana loo baahna afaaraha nolosheeda inaad soo faragashato, haddii kale saaxiibtinimadeeda ayaad waynaysaa. waxay igu dhahday, adiga horta markasta walaalkayga maxaad u diidaa? codkeeda ayay kor u qaaday ayadoo dhahaysa, maxaad isku malaynaysaa adiga? haddii aad qurxan tahay ma kibraysaa? maanta laga bilaabo saaxiibadeyda ma tihid. wayna iga tagtay anoo meesha taagan. markaas ayaan dareemay dadka jaamacadda joogay dhan in ay isoo fiirinayaan. waan iscelin waayey. anoo ooynaya ayaan jaamacadda ka soo baxay. tagsi ayaan istaajiyey. guriga ayuu igeeyey. waxa ay Nayl igu samaysay awgeed ayaan jaamacadda 2 maalin la aadi waayey. intaas kadib waxaan isku dayay wax walba inaan iloobo. jaamacadda ayaan aaday. waxaan isku dayayay inaan iska dhaafo Nayl, si kastaba ha ahaatee inaan marnaba ka agdhawaanin. maalmo ayaa ka soo wareegay. waxaa la gaaray maalinta dhalashadayda. guriga ayaan ku soo laabtay. waxa ay asxaabteeda lama filan iiga dhigeen inay qurxiyaan guriga iyo inay ii keenaan hadiyado aad u fara badan iyo wax kasta xafladda ku saabsan inay diyaariyaan. markaas aad ayaan u farxay, laakiin waxaan kaloo arkay Nayl oo iyadana soo xaadirtay. way ii dhoola caddaysay, waxayna igu dhahday, waan ka xumahay, waan ogahay inaan ku xumeeyey, laakiin ku talagal igama ahayn. walaalkayga ayaan arkay inuu kaa helay, adigana ihtimaam waad siin weyday, laakiin aniga xaq uma lahayn inaan sidaas kuula hadlo. waan qaldamay, arrintaasna mar kale ma soo laabanayso, iga raali noqo. kadib hab ayay isiisay. xafis ayay iga dalbatay. gudahayay kama cafinin, laakiin dadka hortooda waan ku ceebeen waayey. hadiyad ayay isiisay, waxayna igu dhahday hadiyaddan xafido. dhowr jeer ayay iigu celcelisay inaan xafido hadiyadda. dhammaantooda waa ay ii hambaliyeeyeen. hadiyada ayay isiiyeen. keega ayaan jarnay, waana wada baashaalnay. aad ayaan u farxay, laakiin Nayl dhowr jeer ayay iigu celcelisay inaan xafido hadiyad ay isiisay. waxayna igu dhahday, haluminin hadiyadda, waxaan kaa rabaa inaad si fiican u ilaaliso. haye ayaan ku dhahay. xafladii ayaa dhammaatay. dadka oo dhan waa ay baxeen. gurigii ayaan ku laabtay. hadiyadaha ayaan aruuriyey si aan meel u dhigo ilaa subaxii laga gaarayo. laakiin hadiyadda Nayl markii aan arkay, hadalkeeda ayaan soo xasuustay. sidaas daraaddeedna waan furay si aan u arko waxa igala dardaarmaysay. haddaan furay waaba boombala yar oo iska caadi ah. waxaan la yaabay sida ay igula dardaarmaysay. boombala keliya ma ii sheegaysay. isla meesha aan ka soo bixiyo ayaan ku celiyey. meel
korena waan saaray. Kadibna hadiyadaha kale ayaan soo qaaday, meel ayaan dhigay maxaa yeelay aad ayaan u daalnaa. Nasiib wanaag beritana waa fasax, waxaan fursad u helay inaan nasto. Maalinta ku xigtay hadiyadaha ayaan furay, aad ayaan ugu farxay, laakiin hadiyada Neel mar kale ma furin. Waxaan kaloo aad ula yaabay, Neel ayaa fariin ii soo qortay ayadoo i dhahaysa hadiyada ma furtay. Haa ayaan ku dhahay. Ma ku cajabisay ayay dhahday. Haa ayaan ku dhahay. Si fiican u ilaali ayay igu dhahday. Waan la yaabay laakiin waxba kama dhigan. Waxaa shakiga igu dhaliyay marka aan jaamacadda aaday ayaa Neel imaanshahayga ka naxday. Waxay igu dhahday ma imaaday, ma caafimaad qabtaa? Haa ayaan ku dhahay. Maxaa dhacay? Maya ayay igu dhahday. 2 daqiiqo marka ay kasoo wareegatay ayay igu dhahday hadiyada ma furtay. Waxaan ku dhahay waan ku dhaaranaya waan furay, waana arkay. Maxaa kugu dhacay? Markaan ayadoo qalqalsan oo wajigeeda isbedelay ayay igu dhahday maya. Markaas ayaan ogaaday hadiyada inay wax leedahay, Neelna ay rabto inay i dhibaatayso. Asxaabi intaan ayaan ku joojinaynaa. Talo maxaa dhici doona? Maxaad u maleynaysaan hadiyada dhexdeeda wax ku jira? La soco qaybta xigta ee sheekadeena. Haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo.